بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دمانتين بمير والبواد دنيا كا جوجتان waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka gaar ahaan jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ciidanka ilaalada kacaanka oo weerar culus ku qaaday saldhigyo ku yaala Bahrain iyo Kuwait iyo hadalba ku roonay wadanka Qatar gobolka bariga dhexe si buu u ololeeyay saldhigyada dawladda wadanka Mareykanka ay ku lahayd wadamada Khaliijka oo gubanaya dawladda wadanka Mareykanka iyaguna militariga weerar culus ay qaadeen markabkii labaad ayaa goordhow ay holciyeen ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran maxaa sidoo kale ka soconaya magaalada Masqad ee caasimadda wadanka Cumaan xiisada gobolka bariga dhexe oo markale cirkas ku sii shirartay wasiirka gaashaandhigga dawladda wadanka Mareykanka oo hadal culus jeediyay Iran wareegan talada ayaa waa cabaysan barnaamijka ayaa ku soo qaadan doona deelka dhibaatada mahadsantiina soo dhawaad oo shirgaray muuqaalka kanaalka gaarsiin saaxiibadiina aragtidiina ka dhiibto u duceeya dalkeen Ilaahay ka dhigo kan ugu xoog badan ugu dhaqaalaha badan qaarada Afrika hogaamiyaal muslim oo sunniya Umar ibn Khattab iyo Khalid bin Walid iyo Salahuddin al-Ayyubi oo kala ayaan Ilaahay weydiisanana dalkeen inuu nooga dhiib hadii Allah ka dhigo inta xanuunsanaysa caafimaad tamayaan u rajeynayna dadka baahan wax badan oo baraka leh Allah siiyo dadka muslimiinta ah mujrimiinta munaafiqiinta gaaladu ay xabsiyada ku cadaabayaan Ilaahay ka soo siidayo dambigooda la dhaafo eheladoodana samariyo iman qalbiga Allah u geliyo inna ma yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisaab adadu mahadsantina soo dhawaad waxa markale gobolka bariga dhexe dagaalo culus ayaa ka soconaya xilli dawladda wadanka Mareykanka ay weerar ku qaaday gudaha wadankeena sida qaar kamid ah warbaahinta ay weeraraya waanu imaan doonaa jawaabta ee dawladda wadankeena laakiin markii ugu horeysa aan ku hormarno wadanka Mareykanka wasiirka gaashaandhigga dawladda wadanka Mareykanka ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen ciidanka dawladda wadankeena iyo goobo badan oo ku yaala wadankaasi telefishinka dawladda wadankeena ayaa wariyay ugu yaraantii 10 goobood in markaas laga maqlayo qaraxyo kuwaas oo markaas ay ku yaala koonfurta wadanka gaar ahaan magaalada la yiraahdo Harmuzgan magaalada la yiraahdo Hormuzgan magaalada la yiraahdo oo ku taala koonfurta wadanka wadanka la yiraahdo Iran duqeymahan waxa la welinayaa ka dhacay ama dawladda wadanka Mareykanka militarigeedu ay ka geysteen Hormuzgan magaalada la yiraahdo 10 goobood ayaa la weeraray dhawaqna waa la maqlaya laakiin ilaa iyo hadda waxa la weeraraya khasaaraha rasmi ah lama shaacin telefishinka dawladda wadanka Iran ayaa warkaas ay weerinaya isla telefishinka dawladda wadanka Iran ayaa isaguna weerinaya magaalada Bandar Abbas ilaa iyo 3 goobood in qaraxyo laga maqlay in waxay ku taala koonfurta wadanka la yiraahdo Iran wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga dawladda wadanka Mareykanka ayaa markaa wuxuu yiri Iran waxay qaadatay buu yiri go'aan adag oo qaraar laakiin hadda ayaan inaguna jawaabti bilaabayna malaha dawladda wadanka Iran sababtu sida uu leeyahay dagaalkan uu ka bilowday waxay tahay in ciidanka ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ay dejiyeen mid ka mid ah maraakiibta isku dayay inay ka markaas oo ka dhiga adeego amar ka soo baxay markaa ilaalada kacaanka wadanka Iran waxaanu isku dayay dawladda wadanka Mareykanka amar ay siisay inuu fuliyo kaas ku saabsan inuu dul maro ama dhanka kale ka maro gacanka Hormuz isla markaana sidaas uu uga gudbo militariga wadanka Mareykanka iyo siyaasiyiinta ugu sareysa aqalka cad ee wadanka Mareykanka Donald Trump uu kamid yahay ayaa isku dayaya in laga maarmo gacanka Hormuz oo wadanka Cumaan meel kale inta laga sameeyo halkaas laga wareegto laakiin Iran waxay leedahay waxba kama jiraan marka sidaas daraadid marka militariga wadanka Mareykanka weerar culus ayay qaadeen ilaa iyo 140 goobood inay duqeeyaan ayay warinayaan laakiin dhinaca kale goordhow ayaa iyadana sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran weerar jawaab celis ay qaadeen saldhigyo ku yaala wadanka Qatar iyo sidoo kale Kuwait ayaa qiiqooda baxaya waxaana dawladda wadanka Iran ay warinaysaa halkaas inay tahay goobihii laga soo weeraray militariga wadanka Mareykankana waxay faahfaahiyeen muuqaal soo bandhigeen sidii ay u duqeeyeen iyo weerarada iyagoo qaadaya maraakiibta wadanka Mareykanka ee ku sugan gobolka bariga dhexe ayaa iyaguna wadnaha farta ku haya waxaa lagu yiri war laga soo saaray markaas taiska dhexe ciidanka wadanka Mareykanka haddana bilownay weerar culus oo waliba weerarkii ama muujadii labaad oo weerara isbuucan gudihiisa kii labaad ayaanu qaadayna arintaas waxaan ku beegsanay bay leeyihiin goobo ay yaaleen diyaaradaha droniska iyo hubka iyo raadaalada markaas jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran laakiin Iran ilaa iyo hadda khasaaraha gaaray iyo goobta la beegsaday iyo waxa dhacay faafahin dheeraad ah kama aanay bixin
waxaasay warinayaan in aanay marna kasii aamusi doonin oo waa dhab sida muuqato dirbaba militariga wadanka Mareykanka weeraro culus ayaa lagu qaaday iyaguna saldhigyadooda dhibaato culus iyo gantaalo aan kala go' lahayn ayaa ku socda saldhigyada militariga wadanka Mareykanka uu ku leeyahay Bahrain iyo Kuwait iyo Qatar waliba dowladda Qatar saldhigyada ayaa mid ugu dambeeyay weerarka ayaa ku kordhay xilli ay wafuud ka socoto dowladda wadanka Qatar ay markaas joogaan jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran laakiin Iran waxaasay ma qorto meel kasta oo laga soo weeraro ayaa iyaduna jawaabay ka bixinaysa dhinaca kale sheekadan cajiib weeye Lebanon tan markii weerarku bilowday sida la leeyahay 4322 qof ayaa ku shahiiday halka 21210 qofna ay ku dhaawacmeen weerarada gardarada ah ee ay diyaaradaha dagaalka maleeshiyaadka ay ku qaadayaan koonfurta wadanka Lebanon arrintan ay si weyn loola yaabay dowladda wadanka Mareykanka iyo xulafada dadka sida loo gumaaday marna kama hadlayaan laakiin waxay rabaan inay Iran ma jahaabiyaan marka duqeymo culus ayaa ku soconaya wadamadaasi alay tahay wararkii ugu dambeeyay hadeenu eegnana waxay leedahay militariga wadanka Mareykanka waray soo saareen gaar ahaan taliska dhexe waxay sheegeen in ay markaasay hakiyeen oo ay soo dhameeyeen weeraradii ay ku qaadayeen wadanka Iran oo hadda uu la sugay laakiin jawaabta dowladda wadanka Iran ayaa durbaba iyana ka daba timaaday oo militariga wadanka Mareykanka qaar badan oo kamid ah waxa la warinaya cudurro iyo xanuuno dhinac maskaxda ay ka qaadeen weerarada joogtada ah ka imaanaya jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ee qaba war go'do laga soo saaray ay soo saareen ilaalada kacaanka wadanka Iran ayaa iyagana waxay leeyihiin hadda ayaanu weerar qaadayna xadgudubyada dowladda wadanka Mareykanku mid la isu cafin doona ma aha sidaas daraadeed iyana waxay warinayaan inay weerareen saldhigyada kor ku soo xusay dhowr goobood oo ku yaala weeraradii lagu qaaday magaalooyinkaasina waa ka jawaabayna ayay leeyihiin marka saldhigyada Mareykanku ku leeyahay Qatar iyo Kuwait iyo Bahrain ololkooda ayaa iyaguna baxay militariga wadanka Iran rakaftama ma aha isla sidoo kale waxay warinayaan in ay dhulka soo dhigeen diyaaradda la yiraahdo MQ9 taas oo isku dayaysay inay basaasto markaas dowladda wadanka Iran waxa kale oo ay leeyihiin waxaynu weerarnay saldhig ku yaala wadanka Urdun halkaas iyaduna diyaaradaha droneska la yiraahdo diyaaradaha droneska laga soo diri jiray bay leeyihiin waxaanu ku weerarnay bay leeyihiin dhowr markaas sawaariikh oo balastiga ayaa lagu garaacay marka weeraradu waxa isku jiraan Urdun iyo Kuwait iyo Qatar ayaa si baan loo garaacay Urdun hadda maalmihii hore xogaa uu ka yaraa laakiin waxaad moodaysaa markan iyadana tilaabooyin culus in laga qaaday waxa kale aan duqeynay bay leeyihiin si adagna u duqeynay goobo militariga wadanka Mareykanka isku dayay in dhaqdhaqaaq ka sameeyaan gacanka Hormuz meel aan ahayn lama mari karo wax kasto dhaca ayay ku hanjabayaan militariga wadanka Iran ilaalada kacaanka marka waxay leeyihiin isku day kasta oo la doonayo in lagu majaro xabaabiyo dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameynayaan maraakiibta dagaalka dowladda wadanka Mareykanka waa ku guban doontaan ee guri kama gaari doontaan ayay warinayaan qaar kamid ah ilaalada kacaanka wadanka Iran gobolka bariga dhexe mar kale waxa uu lagu hadlagalay dagaal aan kala go' lahayn iyo musiibo aan dhamaad lahayn iyadoo saldhig la yiraahdo Amir Hassan markaas Mareykanku ku leeyahay wadanka Urdun la warinayo inuu ololayo ka gadaal ama guud ahaan ay burburiyeen ka gadaal markii ciidanka ilaalada kacaanku ay si naxariis darro u weerareen jawaabta militariga wadanka Iran ayaa ilaa iyo hadda soconaysa goobo badan oo ku yaala wadamada khaliijkana iyaguna weeraradaas ay ku soconaya wagaag dhinaca kale dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay weeraradii ugu dambeeyay ee markaas labada dhinac isdhaafsaday laakiin ilaa iyo hadda cidna si rasmi uma shaacin wasaaradda gaashaandhigga Istaga Imaaraadka Carabta ayaa iyadana la weeraray war xaaladda way si adkaanaysaa Al-Jazeera ayaa warinaya in Istaga Imaaraadka Carabta iyaguna weerar culus lagu qaaday saldhigyada militariga ee wadanka Mareykanka halkaas uu ku leeyahay wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka Carabta ayaa warinaysa in hadda ay doonayso inay ka hortagto diyaarado drones iyo gantaalo dhinacay wadanka Iran ka imaanaya dowladda Imaaraadka harash gaar ayaa loo hayaa wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda wadanka Iran waana shalay idan lahaa ayaa amar ku bixiyay ama codsaday in tilaabo culus laga qaado Istaga Imaaraadka Carabta maxaa yeelay jaajuusiinta iyo weerarada ku soo qaadayo fuintooda ayaa lagu abaalmariyay ayuu yiri marka dhan kasto la eego waxaad moodaysaa xaaladda marba marka ka dambaysa waa ka sii daraysa masqad dowladda wadanka Mareykanka iyo Iran wada hadalla ayaa la rabaa inay ugu furmaan laakiin maxay ba furmayaan dagaal baa bilowday oo waa la isjafayaa wararkani wixii ku soo kordhay waan idin wadaagi doonaa haddii alla ka dhigo inta ka horeysa nabadgelyo